بسم الله مركنا waxaan rabaa in xogaa yar ka yar hadlo arrimaha ku saabsan jasiirada Socotra ee ayaan dhaweyd xuutiyiinta dalka Yemen ay sheeganayeen in ay tahay dhul iyagu leeyihiin ama ay ka mid tahay jasiiradu qayb ka mid ah dhulka xuutiyiinta marka waxaad moodaa libaaxu hasha marka uu disho waxoogaa yare ka cuncuno muxuu ah dhiigga uu ka nuugo oo beerka iyo keliya uu kala baxo iyo cadka fiican uu kala baxo inuu uga tago dhurwaayada iyo gorayada iyo dacawada iyo ay yimaadaan iyaguna markaa ay feenfeentaan marka Soomaaliya tan iyo xilligii ay burburtay dowladdii kacaanka sanadkii 1991 ilaa iyo 30 sanadood waxaad moodaa cid waliba in ay isku soo dayayso in ay xoogaa u itaal sheegato ama ay xagga siyaasadda ka soo gasho ama barigeeda ay ku soo xadgudubto ama baddeeda ay ku soo xadgudubto adoo siyaabo fara badan oo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed berigii hore aanay dhici jirin cid soo haweysata ama damac uu ka soo galo geeyiga Soomaaliyeed sanadadii afartamaadkii waa haddii aan usoo laabtay xagga jasiirada Socotra sanadadii afartamaadkii marka la isku soo qaado Soomaali weyn ama xidigta haatan noogu taala calankeena ee astaantu ah shanta geesood leh waxaa lagu macneyn jiray jamhuuriyadda ee markaasi ka koobnayd koonfurta iyo waqooyiga ee iyadoo xorriyaddooda ama go'aanimada ka qaatay gumaysiga Talyaaniga sanadkii 60kii iyo jamhuuriyadda Djibouti oo iyaduna ahayd qayb ka mid ah Soomaaliya waqooyi bare ee Kenya waa NFD iyo Soomaali galbeed shanta qaybood hase yeeshee waxaa jiray geesi Soomaaliyeed ee u dhashay asal ahaan dalkaas Djibouti Allah u naxariistee ahaana nin degan halyeyna ahaa Maxamuud Xarbi ayaa berigaas isna waxa uu aaminsanaa waxaas inaanay jirin oo ma rumaysnayn isaga Soomaali inay shan tahay balse waxa uu aaminsanaa inay lix tahay oo isagu wuxuu qabay jasiirada Socotra inay tahay jasiirad ama dhul Soomaaliyeed sababta juqraafi ahaan markii la eego jasiirada Socotra waxa ay u jirtaa bariga Soomaaliyeed 30 kilomitir oo kaliya Yemenna fogaan ah ama masaafo ah 800 kilomitir ayay u jirtaa marka haddii caqliga uu xisaabtamo xitaa fogaan 30 kilomitir ah jasiirada u dhow ama fogaan 30 kilomitir ah jasiirada u jirta dalka soo xiga ee ah Soomaaliya miyaa la raacinayaa waddan kale oo 800 kilomitir u jira miyaa la raacin taasi waxaan logic ahayn macquulna ma aha waxa kaloo caddeyn inooga filan boqor Kennedy ayaa waxaa la yiri waxa iskhilaafeen berigii hore adeerkii oo ahaa Sultan Cusmaan khilaafkaas yar markuu u dhexmaray boqor Kennedy wuu carooday wuxuu degay uu aaday jasiirada Socotra si uu u dego halkaasi muddo markii uu ku noolaa ayaa waxa u tagay oday ka mid ah odayaashii berigaasi oo magaciisu ahaa Xaaji Cali Gaboose oo markaana ahaa nin aad loo qadariyo
saaxiibna la ahaa boqor cusmaan. markaasaa wuxuu ku qanciyey kenadiid inuu isaga soo tago jasiiradda soqotra oo markaas ahayd meel aad muxuu ahaa aan aad barwaaqo ahayn, oo muxuu ahaa wax nolol aad u wacna aanay ka jirin, inuu usoo wareego ama hobyo ama kismaayo inuu dego. hase yeeshee boqor kenadiid waxa uu door biday inuu iska dego markaa hobyo, halkaasoo uu muddo uu ku noolaa, uu ka aasaasay imaarad oo isaga hoos imaan jirtay. hase yeeshee berigii uu soo galay dalka gumaysiga talyaaniga ayaa markaasi sidii xilkii uu ama ay uga wareegtay jasiiradda gacantiisa. intaas waa ka taariikheen. waxaa dhacday sanadkii 1996 shir ka dhacay jaamacadda carabta oo ay isugu maanayeen waddamada carabta, in mid ka mid ahii safiiradii ka socda waddamada carabta in uu weydiiyey safiirkeenii ee berigaasi inoo fadhiya masar, allah u naxariista ambaasador cabdullaahi xasan maxamuud sheermaarke, ayaa wuxuu weydiiyey su-aal ahayd. wuxuu yidhi, safiir, idinka iyo yemen ma ka heshiiseen arrintii soqotra? markaasuu yidhi, hadda waxaan ugu jawaabo igu yidhi, hadda arrintaasi ma joogno, oo waad arkaysaa saaxadda carabta inay dagaalo ka jiraan. soo qaato wuxuu dhibaatooyinka ciraaq ka jiray, soomaali laftigeeda ay qalalaasa ka jireen, dhibaatada dagaalada sokoy ay ka socdeen, suudaan, aduu meelo fara badan, falastiin. marka wuxuu yidhi, bal arrimahaas marka laga soo jeesto ayay noo noqon doontaa, ayaa laga hadli doonaa arrintaas. hase yeeshee intaanay dhicin dowladdii soomaaliyeed ee kacaanka ayaa sanadkii 90kii shirkii jaamacadda carabta wuxuu ii xaqiijiyey shirkii jaamacadda carabta ee ka dhacay magaalada qaahira in soomaaliya ay la tagtay dacwad oo ay ku codsanayso jasiiradda soqotra, juqraafi ahaana in ay tahay dhul soomaaliyeed. yemaniyiinta ilaa maanta waxay ku sheegi ilaa berigaas ilaa imaantadaba waxay ku sheegaan waxaas sheegashadaasi soomaaliya inay been tahay oo aanay run ahayn oo aanay sax ahayn ayay ku sheegaan. shirkaas arrintii qodobkii ajendahaas isaga ahaa markii la falanqeeyey kadib waa 1990kii, inta aanay dhicin dowladdii soomaaliya ee kacaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa allah u naxariistee maxamed siyaad barre, ayaa waddamadii carabta bayaankoodii gabagabadaha waxa ay qalinka ku duugeen in arrintaas iyada ah dib loo dhigo ka hadalkeeda, oo waxaan la isku afgartay in sanadka 1992 in arrintaasi xal weyn laga gaaro oo laga doodo oo la falanqeeyo, juqraafi ahaan loo falanqeeyo, oo la baaro, taariikh ahaan loo eego, markaa kadibna cidda xaqa oo leh in lagu wareejiyo. marka xuutiyiinta waxaan leeyahay malafkii weli wuxuu yaalaa jaamacatul carab, lamana soo gabagabeyn. soqotrana waxay idin jirtaa 800 kilomitr, puntlandna waxay u jirtaa 30 kilomitr. dacwadiina weli way socotaa. marka ha ku soo kadshoomina soomaaliya. soomaaliya cidna dacwad wax uga qaadi mayso, awoodna cid u sheegan karaysaa ma ay jirto. intaas ayaan kaga baxaya maanta.